gudoomiyaha degmada Balanbale Jaamac ayaa ka tacsiyay geerida shacabka maalinnimadii shalay lagu laayay deegaanka Xirsiluga oo ka tirsan degmada Balanbale. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Maanta halkaan waxaan shir jiraad ugu qabanno kaga hadlaynaa dhacdadii naxdinta lahayd ee shalay taariikhdu markay ahayd 13 bishan koobaad ee Janaayo 2022 ka dhacday tuulada Xirsilugay oo hoos timaada degmada Balanbale. runtii shalay tuuladaas waxaa lagu dilay dad shacab ah oo aan waxba galabsan waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan ka tacsiyeenaynaa dhacdadaas naxdinta oo shalay ka dhacday halkaas waxaan leenahay waxay dhintay Allah u naxariisto eelkoodina sabir iyo iimaan Allah ka siiyo waxaan kaloo halkaan ka soo jeedinayaa awaayahan dambe waxaan ugu batay dilal noocaas oo kala ah oo deegaanka hoos yimaada Balanbale ka dhacayay iyo xuduudka Itoobiya anaga noo dhow oo dilalkaas oo dilal aan qabil runtii hadda dadka shalay wax geystay waxay daba socdeen dad horay loo dilay oo aabayaashood iyo walaalahooda waxaan leeyahay oo halka baaq uga soo jeedinayaa beelaha walaalaha ah ee wada deegaanka in arinta dilalka la joojiyo fadhi iyo nabad iyo walaalnimo iyo wada hadal la isugu yimaado waxaan kaloo baaq u soo jeedinayaa dawladda Galmudug halkaan dadkan maalin walba dhacdada naxdinta leh sameynaya oo dad aan waxba galabsan dilahaya oo dhinac walba jooga in tilaabo laga qaado oo la soo qabto iyagana la isu keeno oo la wada hadal siiyo oo laga dhageysto waxa keenaya maalin walba in la istiro haddaan la helin labadaas waxyaabood oo cidii wax dishana aan gacanta lagu soo dhigno sharciga aan la waafajin dadkana aan la isu keenin oo aan la wada hadal siin maalin walba waxa soconaysa in la istiro in dhibaato dhacdo in la kala qaxo waxaasuna ma ah wax diinta islaamka ku fiican deegaanka iyo dariskana ku fiican waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba dadka islaamka ah oo ehelka ah oo walaalaha ah oo wada dega hal isnabad geliyo hal isugu yimaado gogol nabadeed hal la joojiyo dilka hal la wada hadlo taasa maslaxada iyo wanaagu ku jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.